السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal waa walaalkiin Moxamed Sheekh Ziyaad iyo channelkii aad uga barateen horumarinta bani aadmiga, kobcinta nafta bani aadmiga iyo sidoo kale muxaadarooyin wax ku ool ah iyo qisooyin qalbiga taabanaya tarbiyada carruurta iyo wax walbo ummadeena u wanaagsan oo hortabin u leh. walaalyaal maanta waxaan dib u sii ambaqaadaynaa mawduucani noo socday ee ahaa furayaasha guusha labada qof ee isqaba. waxaan soo sheegnay xalaqadii koowaad ayaan soo yeelanay waan idiin soo gudbinay waan uga wada hadalnay xiriirka wanaagsan iyo sida wanaagsan ee labada qof ee isqaba ay u wada xiriiraan. sidoo kale qodobkii labaadna waxaan uga soo hadalnay xalaqadii labaad dhageysiga iyo saameynta uu ku leeyahay labada qof ee isqabo. qodobka saddexaad ama xalaqada saddexaad ee maantana waxaan uga hadlaynaa walaalayaal shukriga iyo in laisu mahadceliyo saameynta ay ku leedahay iyo ixtiraamka iyo qadarinta saameynta ay ku leedahay nolosha labada qof ee isqaba. sida aan wada ogsoonnahay walaalayaal, ixtiraamka ama taqdiirku waa waquudka ama shidaalka nolosha labada qof ee isqaba ay ku dhaqaaqdo. sababtoo gaariguba wuxuu u baahan yahay shidaal uu ku dhaqaaqo. sida ay tilmaamayaan khubara fi alcalaaqaat alusariya ama arrimaha qoyska dad ku takhasusay, in ay labada qof ee isqaba ay isku soo jeediyaan shukri ama ay isu mahadceliyaan mid walba midka kale, waxay u kafaalo qaadaysaa xiriir caafimaad ku salaysan oo ku dhisan jacayl iyo kalgacayl iyo isqadarin iyo ixtiraam. nin konton jir ah oo arrimahaas wax laga weydiiyey oo la yihahdo Khalid ayaa wuxuu tilmaamayaa maqalka uu maqlaay kelimada shukran uu ka maqlaay islaantiisa maalinka maalin shaqo oo uu soo qaatay kadib in ay ka tirtirayso dhammaan wixii daal ahaa ee uu dareemayay. marka wuxuu leeyahay marka uu ku dareemo qofka dadka kuugu dhow oo uu qadariyo waxa aad samaynayso xitaa waajibkaagaba ha ahaadee, arrinkaa nolosha wuxuu u yeelayaa dhadhan kale. nin kale oo istishaari ah oo isagana arrimaha qoyska ka tala bixiyo oo madax u ah jamciyat alcafaaf, jamciyad la yihahdo Mufiid Sarxaan, ayaa wuxuu leeyahay ana alkalimatu atayibatu laha waqcun kabiirun wa tayibun bayna annaas. hadalka wanaagsan wuxuu leeyahay dhicitaan iyo saameyn weyn dadka dhexdooda, gaar ahaan xiriirka labada qof ee ku taagan asaas waadix ah oo la yaqaano, taasoo ka bilaabanayso doorashada oo ku dhisan inuu qaab wanaagsan oo saxa uu wax ku doorto. wuxuu leeyahay marka ninka odayga alqabuul almutabaadal, aqbalitaanka lisdhaafsanayo warida iyo raalli ahaanshaha waa madkhalka tacaamulka mustaqbalka wanaagsan ee labada qof ee isqaba. marka sidoo kale Sarxaan wuxuu intaa ku darayaa kalimata shukri walcirfaan, in qofka loo mahadceliyo oo loo shukriyo waxay kordhisaa ama waxay awood siisaa dareenka kalgacayl iyo naxariis iyo isu soo dhowaansho iyo qadarin ee labada qof ee isqaba. marka walaalayaal waxaana looga baahan yahay in aan arrinkaas aada uga dadaalno, gaar ahaan innaga oo ah mujtamac aanan garanaynin mahadcelinta iyo inaan isu mahadcelinno oo aan dhahno waad mahadsan tahay shukran, inaan dhahno innaga oo aanan garanaynin oo mujtamac uu ku badan yahay jafaafka iyo qalaylka ah. sidoo kale gabar soddon jir ah oo la yihahdo Huyaam Xusein oo ayadana ka hadashay waxay tiri waxa ay mar walba samayso ama waxa aad samayso mar walba waa wax natiijo u noqonaya shaqadaada yawmiga ah, taasoo keeni karta dhibaatooyin labada qof ee isqaba. maalin walba waxa aad samayso waxayna sidoo kale ku keeni kartaa wanaag iyo labada qof inay isfahmaan. marka habdhaqankaaga weeyaan waxa xadidaya sidaad qofkaaga ula dhaqanto. marka waxay leedahay ninkeeda ka sheeganaysaa, waxay leedahay maalin maalmaha ka mid ah ma uusan ii shukrinin
oo iima uusan mahad celinin hal shaqo aan qabtay ama reerkiisa aan u qabtay iyadoo weliba aan ahaa maaragtay qof aada maaragtay u shaqaysa oo maaragtay wax badan qabata ayaan ahaa bay leedahay khubara maaragtay arrimaha qoyska ka tala bixiya ayaa maaragtay sida saxiifat albayaan ay qortay journaal albayaan la yihahdo in badan oo mushkilaad ah in ay maaragtay hor taagan tahay xiriirka labada qof taasoo keeni karta noloshooda fashal ugu dambeynna ku gabagabowda in ay kala tagaan taas oo asbaabteedu ay tahay mid aada u fudud oo aada u yar oo ay suurtagal tahay in maaragtay la saydareeyo oo maaragtay la xalliyo mushkilaadkaas lana go-doomiyo si maaragtay yacni waxaana lagu go-doomin karaa in la sugo fanniga la yihahdo fan shukr in maarata dadka ay isu mahad celiyaan oo waxa yar aad ka mahad celiso marka dadka baaritaanada sameeyey waxay leeyihiin noloshaada qoys waxay noqonaysaa mid farxad badan oo ka buuxda maaragtay farxad waa marka aad maaragtay isu mahad celisaan oo aad maaragtay dareensiiso qofka kale inaad aada ugu faraxsan tahay la joogidiisa iyo shaqada ku hayo iyo sida uu maarata wax kugu qabanayo daraasad cusub oo maaragtay nin la yihahdo Todd Kashdan oo jaamacadda George Mason oo ku sameeyey maaragtay ayaa wuxuu leeyahay haweeneyda ama dumarka u mahad celiyay raggooda waxay noqdaan kuwo ka farxad badan kuwa kale waxayna noolaadaan waqti ka dheer kuwa kale diraasadda marka waxay tilmaamaysaa sidoo kale walaalayaal inay dumarku yihiin kuwo kaga awood badan ragga xagga cabiridda mashaacirta iyo mahad celinta oo ragga inay arrinkaas xoogaa ay ku hooseeyaan sidoo kale daraasad waxay tilmaamaysaa daraasad kale oo lagu maaragtay faafiyey journaal la yihahdo personality haweeneyda inay maaragtay noolaanayso nolol degan oo xasiloon waa haddii ay ninkeeda u mahad celiso sidoo kale maaragtay walaalayaal waxaana looga baahan yahay inaan arrinkaas sameyno oo maaragtay aan isu dardaaranno oo walaaleen aan u dardaaranno aan faafinno maaragtay wanaagga iyo inaan isu mahad celinno shaqada yar aan qabanayno